السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaaleyga qaaliga ah dhamaantii waa idin salaamay meel walba adduunka aad ka joogtaano waa walaashiin Uma Haruun iyo mar kaleetood please kanaalkayga hadaa ka heshay subscribe laagta commentiga dhiirigelinta waa xagiina maanta waxaa inoo wada qiso oo ku dhacday wiil yar iyo gabadh yar qiso aan la yaabay oo awlaad ku saabsan waay gabadha 16 ay jirtaa wiilkana 16 uu jiraa marka labadoodii waxay iska barteen internetka iska barteen hal magaalo isla joogeen laakiin maysan is aqoonin marka internetka isla barteen isku fikraday noqdeen gabadhi fikradda ay ku fakaraysay oo wiilkiina ku fakaraya marka gabadha qisadeeda si fiican ay idin fahansiinaa si aan u dhaxgalno gabadha hooyo aabba iska dhaleen normal sida anaga camal hooyadeed iyo aabeed way kala tageen hooyadeeda soo korisay marka mar walba hooyadeed ee qalad ka aaminsaneed maxay ahaayeen hooyadeed qalad ka aaminsaneed maadaama oo aabihii soo korinin wiilkane hooyadiis iyo aabihiis way isla nool yihiin laakiin aabihiisa wuxuu sameeyaa maalin walba naag cusub oo bartaa naag cusub loo wadaa maalin walba naag cusub loo wadaa hooyadii way ku samreysay wiilkii yaray aabihii way isfahmi waayeen way iska hor imaadaan markasta way istagaalaan alcamuum adiga wiilkii gabadhan oo bartay gabadhan isku fikraday noqday marka wuxuu arkay qof ku fikrad ah waxay ku fakareen marka maxaa xal ah waxay dhaheen waalidkeena qosol been aan sameysano haye waa cayaar haye maxaan ku cayaareynaa midiye soo qaateen wuxuu yiri daanka ma aragtay marka la qoslayo camal si u kala jiidmay camal iyo midi iyo gujeex ayadana anoo kugu jeexay adigana hadhow ay ugu jeexaysaa wiilkii la hormariyay meel yar gabadha ka jeexday meel yariisaan ugu jeexday asagii inuu qabtay oo jeexay ilaa dhagta agteeda oo jeexay daankan oo kan kalena sidoo kale u jeexay qolkiina hoos ka soo xirtay gabadhii tala faraha way ka baxday way ooysay hooyadii aabiye albaabka soo gargaraaceen albaabka inuu ka furo wuu diiday gabadhii dhiigeeda isku darsamay markii dambe gabadhii albaabkii cidi way jibiyeen gabadhii cidi hooyadeeda loo wacay waa la orday dhakhtar la geeyay dhakhtarkii markii la geeyay waa la daaweeyay waa la tolay meeshii tolma tiro badan ku tolan oo la tirin karin kadib wiilkii ilaa hadda wuxuu leeyahay waa ku jeclahay aabahay adduunku u nacay qosol beena iska raadinayna markaas waxa lagu dhawaay xoog ugu jeexday ayada si tartiib ah ugu jeexday ani waan jeclahay luu leeyahay marka wiilka marka maskixiin uu xanuunsan yahay loo maleeyaa gabadhii maxaa la geeyay kuwa oo maxay ahaayeen qofka hadduu weji ka halaabo kuwa u hagaajiyaa jiro kuwa loo geeyay dhowr meel la geeyay lacag waxaa ku baxday 30,000 aha ku baxday wejigeeda ilaa haddana hadaa aragtid adiga aniga waa ka naxay wallahi maalintaas waa qaraacmay qof kasto arkana wuu ka nixi lahay marka gabadhii hooyadeed maxkamadda waxay soo saartay wiilka aabihiis maadaama oo wiilkan xumaanta dhanba ka keenay odaygii marka waxaa laga qaaday lacagta waxaa la yiri gabadha markay qaan gaarto si 30,000 lagu daaweeyay iyo 50,000 oo kale 80,000 looga qaaday wiilkii marka ninkii naagtiisii wiilkii hooyadiis waxay tiri dhibka dhanba aabaha keenay aniga inaan separate ka noqdaa rabaa sidii separate ugu noqotay wiilkii gabadhii aabaheedan ku wareegay tiri aabaheeyan rabaa inaan la noolaado hooyaday ma rabo maxkamaddii odaygii u go'aamisay hooyadina waa u imaanaysaa wiilkiina wuxuu taagan yahay waa ku jeclahay ani jecel dartiisa iskugu sameeyna waxaan marka cayaarta noocaas oo qaldan waa inaan ubadkeena aan ka ilaalinaa khaasatan caruurta teenage-ka ah oo 16 ilaa 15 14 meelahaas jiro ugu daran hadda labadan ilmo waxay ahaayeen yar ah oo 16 jirayaal ahaayeen wuxuu ku fakareen inay istijaabiyaan bal maxaan sameeynaa cayaartaas aan sameeynaa camal sida horarkii camal marka qishada intaas ay ku dhamaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.